السلام عليكم. maalin ama habeen wanaagsan kolba ka daawanayso barnaamijkan waxaana hubaal inuu yahay mid faa'iido ku leh haddii aad ku dhaqanto haddii aad hore ugu dhaqmaysay qodobada ku sugan mawduuceenan qof cajiib ah tahay ogow kuna soo dhawo barnaamijka dad badan oo inaga mid ah waxay dhibaato ka haysataa maalinta waqtiga ilaa heer ay qaarkood jeclaan lahaayeen inay kordhaan saacadaha ay maalintu ka kooban tahay si ay shaqooyinkooda maalinimo u dhammaystiraan barnaamijkan waxaynu ku baranaynaa 5 caado oo qofka u suurto gelin kara in waqtigiisu u nidaamsanaado iyo inuu u marxo isla markaana u muuqdo sida inuu intii caadiga ahayd ka batay Number 2 shaqada ha u samayn kala horreysiin iyo jadwal qasab ka dhigaya in waqtigaas oo astaysan oo kaliya la qaban karo waqtiyada firaaqo ee u dhaxaysa qabashada hawlaha waaweyn uga faa'iideyso inaad qabato shaqooyinka yaryar adigoo daqiiqad kasta uga faa'iideyn kara sida ugu mudan waayo daqiiqadu markaanad hawl haynin agtaada waxay ka tahay 1 minute oo kaliya laakiin markaad hawl ama shaqo ku muhiim uga faa'iideysato daqiiqad kasta sideeda ayaad ugu mahad celin doontaa maadaama ay ka caawisay qabashada hawshii aad dib u dhigan lahayd ama waqtiga kale ku riixi lahayd caadada labaad waxaad u fikirtaa sidii qof wahsigu ku badan yahay dadka sidan u fikiraa waxay xariifiin ku yihiin inay hal abuuraan habab iyo jidad gaagaaban oo ay ku qabsan karaan hawlahooda iyada oo natiijada ay ka gaarayaan la mid tahay tii ay gaari lahaayeen marka ay jidka dheer ka soo wareegaan inaad sidan u fikirtaana waxay kaa caawinaysaa inaanad hal saacna lumin maalintaada waayo markasta waxaad maanka ku haynaysaa inaad wahsanayso cagajiidayso isla markaana aanad wax muuqda qaban maanta haddaba waxaan kugula talinayaa inaad habdhaqankan qaadato kuna dabaqdo noloshaada maalinlaha ah waayo anigaa tijaabiyey aadna waan uga faa'iiday talaabadan 3 ka faa'iidayso waqtiga socodka iyo sugitaanka ogow in hawlo badan aad qabsan karto xilliga aad gaadiidka dadweynaha saaran tahay ama aad u kala socoto meelaha kala duwan haddii aan adigu gaadiidka wadin sidoo kale intaad sugayso qof aad ballansanaydeen ama hawl kuugu maqnaa sidaas la mid ah xilliyada aad sugayso ballamaha bilowga shirarka iyo kulamada muhiimka ku ah ha yaraysan waqtigan fariin muhiima oo emailka ama WhatsApp kaaga soo dhacday ayaad ka jawaabi kartaa halkii aad ku mashquuli lahayd inaad Facebooka ama baraha kale ee bulshada waqti ku lumiso sidoo kale buug maqaal ama daraasad kale ayaad ku akhriyi kartaa waqtigan ma ogtahay mase la socotaa qofka xawaaraha akhriskiisu dhexdhexaadka yahay inuu daqiiqadii akhriyi karo 250 ilaa 300 oo eray taas micnaheedu waa inuu daqiiqad kasta hal bog akhriyi karo ka soo qaad qof aad la ballansanayd ama bilow shir iyo xaflad aad u socotay oo aad 30 daqiiqo sugaysay waxaad akhriyi kartaa 30 bog oo buugga ka mid ah ama warbixin iyo daraasad dhammaystiran tani waxay si cad kuugu bayaaminaysaa in daqiiqadu ay faa'iidada intaas leedahay haddii aad ka faa'iidaysato 4 wax kasta oo aad qabanayso waa inaad ka fakartaa beddelka aad ka helayso ujeedada qodobkani maaha inaad hawl kasta lacag ku hesho abaalgudsan oo aakhiro ayaad ka fikiraysaa sumcad wanaag iyo magac adduun ayaad u baahan tahay xitaa caafimaadkaaga nafsiga ah ayaa ku kordhaya samafalka aad samaynayso waxaase ayaan darro ah inuu qofku waqti ku lumiyo beddel la'aan inaad ka fikirto beddelka aad ka helayso waqtigaaga baxaya waxay kugu beeraysaa dabeecad guul horseeda oo ah inaad garato shaqada mudan inaad qabato iyo muddo waqti lumiska ah ee aanad waxba ka dheefayn 5 cid kaaga fiican hawshan raadso naftaada ha ku daalin inay qabato hawlo aanay ku fiicnayn way fiican tahay inaad dadaasho hawlo waaweynna aad waqti iyo maskax geliso si aad uga midho dhaliso waxbarasho iyo waayo aragnimo kororsiguna waa arrin muhiim ah laakiin ogow qofku kaligii isma wadi karo hawl aanad aqoon u lahayn oo aad isku qaadana guul darro iyo niyad jab ayay ku horseedi kartaa shaqada xitaa kugu adag ama kaa sarreysa ha ka baqan laakiin kaligaa geediga ha gelin ee wehelka aqoon badan la kaasho oo ha kugu garab siiyo kala sheekayso kala tasho ka baro xitaa mararka qaarkood gacan yare mushahar aad ku siiso ka dhigo qofka waayo aragga u ah shaqada aad qabanayso haddii si aad isku qaaddo waxaanad xirfad ahaan iyo mihnad ahaan u garanaynin xaqiiqatan guuldarro iyo niyad jab ayaad ka dhaxlaysaa caadada 6 isla markaana caadada ugu dambaysa waxa weeye inaad habeenkii xilli hore seexato subaxiina xilli hore toosto marka laga yimaado caafimaadka maskaxda nafta iyo jidhka ay u leedahay inaad hesho hurdo wanaagsan oo kugu filan ugu yaraan 8 saacadood seexato ma ogtahay haddaad talaabadan caado ka dhigato isla markaana joogtayso inay maalintaadu ballaaranayso oo barakoobayso farxad deganaan iyo xasiloonina aad ka helayso sidoo kalena aad uga faa'iideysan karto hawl kasta oo ku taala inaad sideeda u qabato maalintaada
sida inaad salaadaada xilligeeda tukato, imtixaan diyaariso, shaqo muhiim ah oo kuu taala aad gelin horeba iska dhamayso, inaad faamilkaaga soo booqato, inaad qoyskaaga waqti la qaadato. haddaad reer leedahayna caruurtaada aad u hesho waqti aad kula ciyaarto, casharada ku qaybsiiso, xaaskaaga aad kula gorfayso, hadba wixii soo biiray ee u baahan ka wada xaajoodka iyo wada tashiga. waxaa soo faa'iido ah ayaa ku jirta inay hurdadaadu hagaagto. waxaanay xaqiiqadu tahay inaad xitaa adigu isbaranayso qofka aad tahay iyo awoodda aad leedahay ee howlqabasho. haddaba haddii ay 6 qodob qaar ka mid ah ay kaa maqnaayeen, ku darso caadooyinkaaga, waxaana hubaala inay ku anfici doonaan dhinac kasta. nabadgelyo.